daawadayaal maanta waxaan idin hayaa qormo ku saabsan laptopkaaga ama computerkaaga sidii aad u nadiifin lahayd ama aad u clean gareyn lahayd isagoo bilaanta fayraska. Inta badan waxaa jirta wax caches la yiraahdo ama caches la yiraahdo oo ay reebaan faylasha la soo download gareysta ama IDM ha noqdo ama torrents ha noqdo. Marka adiga oo bilaanta fayraska sidii aad computerkaaga uga dhigi lahayd mid nadiif ah ayaynu eegi doonaa. inta badan anigu waxaan isticmaalaa Windows 10 laakiin Windows 7 iyo Windows 8 ka intaba waad ku isticmaali kartaa isku talaabooyin iyo isku istabisna wala qaadaya. Haddii aad doonaysid inaad computerkaaga ka badbaadsid fayrasyada iyo spams waxaad kaga bogan doontaa qormadan. Haddaba waxaynu samayn doonaa sida loo nadiifiyo computerkaaga bilaanta fayras. ugu horeyn waxaan tagaynaa start menu ama Windows 7 hay ama Windows 8 ama Windows 10 dhammaantood waa isku wada mid. kadibna start menu ama search box-ka waxaanu ku qoraynaa kelmadda run. markaan run ku qorno kadib inta ayaynu siinaynaa programkii ranka ayaa noo soo baxaya. markaa waxaynu keywords ayaynu ku qoraynaa. ugu horreyn waxaynu ku qoraynaa temp. waxaa soo faylali waa spam ama viruses, unwanted folders iyo files oo aan loo baahnayn. waxaana qaadan karaan marmarka qaar bay 10 GB noqdaan. iyaga ayaana inta badan keena culeysyada iyo inuu computerku crash garoobo ama hangingka ama inuu computerku stack galo. marka waan iska saaraynaa waa waxa soo faylala control plus intaynu dhahnaa ama select all aynu odhanaynaa shift plus delete waa permanent delete. shift plus delete taasi waa talaabada koobaad. marka cabaar ayay qaadanaysaa in ay faylashaasi ka baxaan. qaar wuxuu ku odhanaya kama bixi karo, kuwa waad iska dhaafaysaa. dabeetana inta ka baxda badankoodu way ka baxayaan 93 ama 4 ilaa 5 fayl baa kuu soo hadhaya. stepka labaad ama talaabada labaad isla rankii ayaan soo furanaynaa. intaan start menu tagna ama search box-ka waxaan ku qoraynaa kelmadda prefetch. iyadna waxaa soo fayla ayaa inoo soo baxay. waxaa soo fayli waa unwanted files and folders aan loo baahnayn oo spam oo virus oo computerka ku keenaya stack ama culayska inuu culays galo. marka iyagana control plus intaan idhaahno ama select all ayaan shift plus delete waa permanent delete ayaan odhanaynaa. kadib cabaar bay qaadanaysaa in iyaguna ka baxaan. waan iska sugaynaa. kadib sidaas ayaad computerkaaga ku nadiifisay. waxaa loo baahan yahay 5 cisho ama 7 ilaa 3 jeer inaad qaabkan isticmaashid si fayrasyada aad isaga ilaalisid computerkaaguna uu nadiif kuugu noqdo oo speedkiisu kuugu fiicnaado.